وكذلك وحاسد أسوك لسمي النمرود فرعون إبراهيم فرعون كيسيئها نمرود من كنعان نيك اللي ولن جريه شيطان كأها وعلى شقينه يهي بقر كوه الرئي الدنيا ملكية أول ملك أي سلطنة دي سئيو بقر نيمة دي سئيو ما ملكسو الدنيا وردن وحريو إنه أهاب الله الشيء نمرود من كنعان عربنا أها سيد الله الشيء وليه عربيت عمالقة أهاب الله الشيء نبي الله إبراهيم نك دبي امتحانه عذابي نار تقطوره شيطان كيوي وكذلك نمرود فرعون إبراهيم اتخذ وحوص سميستي التابوت الصندوق إيو والنصور قرقرو سميستي هادجيلي قرقر بديار صدي والرام أزنا وحود دون آل اطلاع إنه كاين بقاده إلى الله سبحانه وتعالى إله إنه سوقارا صدو مركب وصاركو لما قرتي كان يوها يدعوه إبراهيم دو أغير النمرود إلى معرفته في السماء إلى أن معرفته في السماء بعيدًا أنيجا وحكى بدنا نعيد وقرن تيمية أجر سواء بعيدين ديجان كل جين دملا أو قليل كلها يستوي نسخة بدر مع كل جامدة إلى أن معرفته إلهي أغاشيس اللي أغاده في السماء في العلو إلهي يحلو أغانيا مكان أهان اعتباري مركز الآن وكهذا إن نجا الدنيا هوسي إنه عركة كسري زلان وذاتك محققة وحبك ما تلمامي لكن وجد إمامكم ما اسنادنيني قصة أهل العلم قصيان من طريق علي بن أبي طالب كتماده ومن طريق مجاهد بن جبر كتماده إيجو عكرمة أيضا دير نقول شيء الطبراني في كتاب الأخبار الطوال وكل شيء كتب التفاسير ناتكو أركيس مركا لفسر آيات دي وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي كل شيء عن بركود سيدا أبدا وذادنا آيات ظهور سورة الرعد بأي كل شيء وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا لمن آيات النحل أي كل شيء محوها قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون السداس مكن نبي الله إبراهيم نمرود من كنعان وغير إلهي إنه عابده شركي كفر وإسكدايو إلهينا وحده بختنا وجوجيو خالقي أدونك أبورنا وأشياء إنه مخلوقات كبحسن ياي يحول هوشاسا كور دونها ياي هلا يدياريو أسباب السماوات فأطلع إلى إلهي إبراهيم هذا مرينا طيب الله يدياري قولي سببك تاسي كدغان علماء waxay ka dhigan sababka ma ahayna markuu kibray oo adduunka oo dhanba uu meel saaray iyo wuxuu yiri wixii duni ku noolaa waan ka adkaaday bal waxaan isbilaabaynaa hadda cirka dadka jira waa nin kibray ma ogtahay cirkan ka wardoonaya marka wuxuu soo qabtay gorgoro dhowr ah yar ayaa loo soo gorgor baalkan galeydka waaweyn gorgor iyo galeyd way kala duwan yihiin laakiin galeyd baa taqaanaan marka dadkiinan waxay haad ka arkeen digaag ay u badan tahay galeydka shimishimay iyo idinka laaya digaagta garanaysan kaan bad garanaysan gorgor yar loo soo ururiyay kadib markaas uu calfiyay markuu calfiyay waa weynaaday oo mid walba inta la rabo uu la ekaaday dhowr boqol xabba ama ka badanba iyo wuxuu dhahay la gaajisiyo waa raashinkii baa laga gooyay kadib wuxuu sanduuq weyn hal la sameeyo laba ruux qaadi kara hub iyo sanad iyo qaanse iyo falaadhe iyo hubna aan ku qaadan karay iyo biyo baad sanduuqa dushiisana geed dheer oo birtan oo kale oo dheer intii laga qotonsho dhowr waaxood oo hilib ah laga laadsho buur gorgorkii ama galeydhidu waa weynaa lugahooda wuxuu yidhi sanduuqa aan gelayn ee dadka qaadahaya ha lagu xidho xadhka laga soo qaado gorgor labadiisa lagu xadhig inta lagu xidho ha lagu xidho sanduuqa afartiisa gees sanduuqa laba nin baa gelaysa saanadooda hubkooda sanduuqa dushiisana wuxuu ku qotmiyey bandiirad iyo calan dheer oo wada hilib gorgoradii la gaajisay bil afka aan wax saarin dhowrka boqol ahaa waxaa arkay hilib korkooda saaran
way kaceen inuu wuxuu hilibka soo qaado sanduuqi labada nin ku jirta numruud iyo ninkii kale ee saanadii bay la kaceen maanta la gorgorada waxay leeyihiin hilibka soo qabta say u socdeen daruuraha dhaaf soco hawada ka bax diyaaradaha meesha tagaan dhaaf inta maxay caydsan hayaan hilibka inay qabtaan bor walbana uu baahan yahay uu duulahayaa lugta waxa kaga xidhan laba nin weeye laba nin hada 500 gor la kacay ma dareemhayaan sanduuq iyo laba ruux ku jiraan maxaa ka dareemi gorgor walba wax yar baad uu dareemaya lugtiisa wax kala laado ilaa markii la badayo waxa qaybsamaya culayskii waa la qaybsanaya laba albaab uu sameeyay sanduuqa wuxuu albaabka karafur markay fogaadeen maxaa aragtaa wuxuu kii la socday shaydaanka cirki wali waa sidiis tabti inooga fogaa inuu wali u fog yahay wuxuu albaabka hoos furo fiiri dhulkii wuxuu qiiq mooy waxba ma arkaba daruurihi iyo dhulkii iyo cir midna hoosteena biyo ma arkabo wuxuu dhan biyo madow isla noqdeen cirkana waa sidiis albaab xidbur hal socdo maxaad aragtaa haddana maalin kadib 3 maalmood bay duulayeen gorgoradu wada waxay dhamee ka badan bay duulayeen socdeen markay gaadheen meel aysan duulin hawada baa soo xidhay gorgor ma duuli karin hawadu meel bay ku furantahay inaad dhaqaaqdo diyaaradu xataa meel bay intay karin la soco oo duulimaadku aan soconaynin gorgoradu markay dhaqaaqi waayeen albaabka haddana far maxaa aragtaa cirka sidii uu weeye maalinkan dhulka joognay iyo hadda isku si unbay hoosna fiiri waxaan arkay ma jiro waxaan daruur ahayn kadib wuxuu yiri soo leexi hilbihi u shidheeray meel laga leexilay qabo wala leexiyay hilibka hoos baa maxay sameeyeen marka gorgorkina hoos bay aadeen dhulkay keere say u soo ordaayeen hilibka qabta way soo dhacay soo ma qabtay leeyihiin mid walba kala uga hormar ee dhulka yimaadeen riwaayadka qaarkood waxay ku darahayaan gorgorkii xiinkiisi ila gorgor hoos kor ka yimid oo duulahay waa aragtin waxaad moodaysaa wax la halgaaday xiinkiisuna kanooni unka dhagaha ku dilaacay markuu ka caayo shimbiraha qabsanaya iyo sagaaradii marka aragteen ragiina miyii ku soo koray baa garanay 500 gorgor marka kacday dhawaqi ka baxayay soo duulaysa iyo jugtu dhulka ay ku dhaceen numruud iyo kii la socday iyo sanduuqi weynaa yay buuruhu waxay moodeenaya adduunka wixii kala makhluuqaadkii in adduunka la rogaayo وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ساسا لو جدا ودا قاقود قصده waa maxay qisada way qisadu sheekhu ku tilmaamay oo khulaaseeyay ولعل إنه زنداري بسند وسنكهلين متصلة مركة ما دام مشهورة عند أهل النقل والسير وكوكاسة تاسو تلمامية من كبريبو بعض الروايات waxay ku darayaan marka uu fagaado uu yiri gaalkii la socdo uu yiri meeshan cirka waa sidiisii baaliga waa daleen mana duulay maxaan sameeyay wuxuu yiri inoo soo bixi falaadhihi aan wadaniyo alaabti warba qaadayna cirkan war ku qaadayna falaadhi way sii daayeen wala ganay falaadhi waxa loo soo celiyay dhiig leh markaas uu adduun horaan baan ka adkaaday cirkana maanta soo afxidhay baan celi hilibkii foorari marka ninka shaydaanka mujrimka warkiisi ayuu sheekhu khulaasaynaya oo ku tilmaamaya aymada sheegay baqay waa kamida fi tafsiir ayadaas ibraahim markuu sharxay tafsiirayo marka ninki bare warkii